wardegdeg ah oo hadda soo dhacay. Faysal Cabdi Bootaan oo la filayo in la soo taago maxkamad kadibna lagu xukumo dil toogasho ah. Beesha Dhulbahanto oo si weyn uga xanaaqday tallaabooyinka ay maalmihii la soo dhaafay wadeen xubno ka tirsan xukuumadda maamulka Somaliland iyo go'aan culus oo habeennimadii xalay looga dhawaaqay magaalada Laascaanood xarunta maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya. maxaa lagu beegsanayaa Faysal Cabdi Bootaan iyo saraakiisha kale ee boqolaalka ah ee ku xiran magaalada Laascaanood? مسؤول كتيرسان حزبك كاه أو دربا أرنتان سوين وجو هريمد هي حق دق هو هذا صور عضي أي المقال كان إذا كوكو باهي دونا يسود هذا هل كان جد داون إنسان وربعين تسي اس ام أنا قلنا وحنا هي على باش عبدي وأنا سنين تاريخ وتلمام يسود تضبي لواتن كبش التضبات labada kun lix iyo labaatan ku soo dhawaada war degdeg ah oo hadda soo gaaray xafiiska warqabadka ee warbaahinta siyaasadda. Ma qorsheynaysaa inaad u dhoofto dalka dibadiisa mana raadinaysaa tikidhadii ugu jabnaa iyo adeeg hufan. Haddaba shirkadda Mareeg Travel Agency Cargo oo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay diyaar kuula tahay wax walba oo aad uga baahan tahay fududeynta arrimaha safarkaaga. Adeegyada safarka ugu heli kartid waxaa ka mid ah tikidhada diyaaradaha, duulimaadada caalamiga ah iyo kuwa gudaha oo qiimo jaban. Adeegyada dalku galka Visa Service, caawimaad buuxda oo ku saabsan habka fiisa dalbashada, hoteelo raaxo leh oo ku haboon miisaaniyadaada ayaanu kugu diyaarinaynaa goob walba ama garoon walba oo aanu ka dejino xajka iyo cumrada oo si damaanad leh lagugu geynayo goobaha barakeysan ee xarameynka. kuna darso waxaan ku haynaa Cargo 24 saacadood shaqeynaya kaasi oo degdegsiimo iyo damaanad leh alaabtaada meel walba oo dunida kamid ah daqiiqad kugu keenaya. Mareeg Travel Agency Cargo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay xafiisyo kala duwan ku leedahay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Wagaag xafiiska Nairobi oo ku yaala Islii Jam Street ka soo horjeedka Kulan Coffee suuqa weyn ee loo yaqaano Hoda Tower Festival. Xafiiska nambarkiisuna waxa uu noqonayaa F30 amaba ugu hagaag xafiiska Muqdisho oo ku yaala suuq Bacaad Ruxsan Mall garoon Flow. sidoo kalena dukaanka ama xafiiska nambarkiisu waxa uu noqonayaa F20. wixii intaas faahfaahin dheer kala xiriir nambarada iyo ciwaanada kale ee shaashada ku qoran adigoo beegsanaya nambarada ku qoran shaashada hore ee muuqaalka. Mareeg Travel Agency waa maareeyaha safarkaaga. sida inoo xaqiijinayaan saraakiil ka tirsan maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya sidoo kalena laga soo xigi karo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland oo dhawaan hadlay waxa macquul ah in markaasi maxkamad la soo taago taliyihii hogaaminaya ciidamadii maamulka Somaliland ee Gooja Cadal lagu jabiyay oo magaciisa loo yaqaano Faysal Cabdi Bootaan. Bootaan ayaa sidoo kale la filayaa in maanta maxkamad ku taalo magaalada Laascaanood oo ka soo hormuuqdo. su'aal weydiinta koobaad ayuu mari doonaa kadibna marka maxkamadda labaad la marsiyo ayaa shacab kale la wadaagi doonaa waxaana la filayaa in Faysal Cabdi Bootaan lagu xukumo dil toogasho sida dhawaan ka soo baxay baarlamaanka maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya oo sheegay in ay maxkamaday doonaan kadibna dil toogasho lagu xukumi doono dhammaan maxaabiista ku xiran magaalada Laascaanood ee beesha Isaaq dhankooda ka soo jeeda. wararaan helayna waxay tilmaamayaan sidoo kale in qofka ugu horeeya ee maxkamadda ka soo muuqanayo oo noqonayo Faysal Cabdi Bootaan. qaraar xoogan ayaa socda waxaana isbedelaya wax walba kadib markii maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya saacadihii la soo dhaafay kala furfur xoogan ay kala kulmeen fahiimo qoojo oo dhawaan u goosatay dhinaca maamulka Somaliland. dhawaan sidoo kale mas'uul ka tirsan xukuumadda aan ilaahdee Somaliland si gaarana xisbiga ka ayaa durbaba wuxuu soo saaray war culus isagoona sheegay in markaasi xukuumadda haatan talinaysa ee Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale rag kale oo Somaliland ka soo jeeda ragga Laascaanood ku xiran aysan u aqoonsanayn rag ka xiran qaranka maamulka Somaliland sida uu hadalkiisa u dhigay laakiin waxa uu sheegay inay yihiin rag qabiilkooda ka xiran. hadalkaasina waxa ka dhawaajinaya afayeenka markaasi xisbiga ka ee markaasi Somaliland. sidoo kalena saacadihii la soo dhaafay xaalado tartaraba ayaa taagnaa iyadoo sidoo kale la filayo in qaraarkii dhawaan ka soo baxay maamulka markaasi Waqooyi Bari Soomaaliya golihiisa baarlamaanka la tixgeliyo waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan maxkamadeyn kadibna dil toogasho lagu fuliyo Faysal Cabdi Bootaan. ehelka Faysal Cabdi Bootaan ayaa sidoo kale tacaddi xoogan iyo cagajuglan xoogan maamulka waxay kala kulmayeen Somaliland ee uu garwadeenka ka yahay Cabdiraxmaan Ciro. xoguhu sidoo kale waxay tilmaamayaan in Somaliland qudheedu ay tallaabooyin kala qaadi karto haddii tallaabadan ay dhinaca maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya ka hirgasho. xogahaasi ayaa soo dhacay waxaana laga yaabaa in Waqooyi Bari Soomaaliya ciil iyo xanaaq ay ka qaadeen goosashada qaar kamid ah xildhibaanada ama golihii markaasi baarlamaanka ee maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya oo fahiimo qoojo ay ku jirto halka sidoo kale shir xubnood oo kale xilka xayoobin lagu sameeyay lana filayo inay ku laabtaan
kuna laabtaan dhinaca maamulka Somaliland waqooyi bari Soomaaliya durbaba waxay gaartay go'aan qaraar oo lagu dilayo ku dhawaad 400 oo ku jiro xerooyinka maamulka waqooyi bari Soomaaliya kuwaas oo maxaabiis ahaan loo qabtay tabayaqadii sanadkii 2023 intaasi wixii ka dambeeyana waxay dadkan ku jireen xabsiyada kala duwan ee magaalada Laascaanood dagaalkii Goojacade ee dad ciidamada macawisleyda maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo xilligaas u dagaalamay qadiyadii SSC Khaatumo waxaa la filayaa in hadda ay maraan cawaaqib xooggan xaalado xooggan ayaa ka soo kordhay maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxaana laga yaabaa intan ee burburka xukuumadda dhawaan dhaliska ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya ay sabab u noqoto dad xooggan ayaa durba ka qaylinaya go'aanka ay qaateen dadka ku nool maamulka waqooyi bari Soomaaliya taasina lama oga ama talabada qaraar ee lagu dilayo maxaabiistii la qabtay oo ku jiro talihii ciidamadaasi hogaaminayay ee loo yaqaan Faysal Cabdi Bootaan inay wax ka qaban karto kala furfurka xooggan ee haatan ku socda golaha wasiirada ilaa sidoo kale kuwa kale ee golaha baarlamaanka maamulkaasi oo maalmihii la soo dhaafay si weyn ula kulmayay kala furfur xooggan firdhiye xaaladdu ay ku xuntaa waqtigan waxaana la filayaa in arrimuhu ay ka sii daraan haddii aan xal waara laga gaarin xiisada ka soo cusbanaatay maamulka waqooyi bari Soomaaliya Fahimo Qoje waa kansarka ugu weyn ee maamulkan dhibaatada ku ah sidoo kalena dhawaan ay u baxsatay maamulka Somaliland laakiin ma aaminaysa in firdhiye iyo xukuumaddiisu ay ka xanaaqeen tegitaankii Faysal tegitaankii Fahimo Qoje waxaana ciqaabta laga dhigayaa in mid loo dilo maxaabiista maamulka Somaliland uga xiran magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari Soomaaliya xogahaasi ayaa soo kordhay dhawaana waxaan halkan idinku baahi doonaa goorta la maxkamadeynayo iyo sidoo kale sababta kale la yaab kale oo aad ogaa doonto inay ka dambayso dilka Faysal Cabdi Bootaan haddii la dilo ninkan oo maxaabiis ahaan loo haystay ku dhawaad 3 sano waxay noqonaysaa dhaqan ugub ah oo ku cusub siyaasadda Soomaalida fadlan halkan ay idinku baahi doonaa xogahaasi iyo xoga kale oo degdega muuqaalkan share gareed oo ku soo gaaraan wadaag saaxiibadada waan ku maasantaa la socoshada iyo la jaanqaadka wararkayga